waa telefishanka Karamarda xaruntiisa dhexe ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga hadaba si aan qodobkaas wax badan ugu ogaanay iyo warbixinta ay daabacayaan xamarada xagjirka ee ku aadan wararka been abuurka ee la xiriira in ay fashiliyeen ama ay heleen xogo ku aadan in la qorsheynayo deegaanka Soomaalida isku dhaciyo dhexmara xamarada iyo Soomaalida ayaa haatan waxa si toos ah qadka ugu jira dalka Mareykanka Dr. Ismaaciil Qodax oo ah xogayaha dhinaca saxaafadda ee golaha danta Soomaalida oo aan wax ka weydiin doona xaradaha guud ee deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale qodobkaasi la xiriirka amxaarada iyo sidoo kale Soomaalida oo haatan oo deegaanka Soomaalida gaar ahaan hogaanka sare oo u muuqda mid uu siyaasadeynayo Dr. habeen wanaagsan marka hore waan ku soo dhaweynayaa marka xigta waxaan ognahay in 3 sano iyo guud ahaan sanooyinkii u dambeeyay amxaaradu cagtooda ay ku soo badinayeen kilalka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida muxuu yahay qorshahooda iyo socdaalkooda iyo maxaa ay ka dhaxleen deegaanka Soomaalida oo ay inta badan ugu soo badanayaan ay kula tahay oo haatan loo sheegayaaba in ay jiraan qorshayaal isku dhacay bal arrintan maxaan ku ognahay Cabdijaliil aad baad u mahadsantahay horta inaad igu soo dhaweyso barnaamijkiina talabaad waxa weeyaan sad la socoto waxani wax imika u bilaabmay maaha taariikh ahaan amxaaradu meelaha badan sida midna Soomaalida oo kale afarta gaambeelada dadkii lagu daray in rolkii lagu daray xaggan kale Ethiopia waxay iyaga ma garanaysaa waxay u yimaadeen dhaqaale ahaan u yimaadeen kolka imika midna Benishangul oo kale hadaa la isbarbardhigo iyo Somali region boqolkiiba 50 iyaga degan maanta kolka waxay ba sheegtaanba inay iyagu leeyihiin laakiin male meelo badan oo saadoo la socoto xagga Tigreega wax isku hayaan Suudinta xagga Walqayd Raaya soo waxay maanta bilaabeen maaha kolkay buurahan ma garanaysaa Abisiiniya kolkay ka soo daadegeen ee u soo gudbeen geeyigan kale dadka kale ee Ilaahay ma garanaysaa nimcada ku manaystay ayay rabaan inay ma garanaysaa loo wareegaan sida Oromada oo kale in xageena oo kale kolka wax maanta uun ma garanaysaa iska bilaabmay maaha waa soo jireen laakiin waxay ku xiran tahay imika midna xagga Oromada maanta dawladda ka jirta iyo xageena way kala gidsan yihiin xageena waxay doonaan bay sidii doonaan u soo galaan waxay doonaan bay iska yimaadeen laakiin meelaha kale waa la xakameeyaa kolka taariikh ahaan bay ka dhigantahay iyaga waxa la oranayay waa settler waxa la yiraahdaa afka xaarkan waxa lagu tilmaami jiray naftanya ma garanaysaa naftanya waxay ka dhigan tahay waa nimankii dhulkeena yimid saad la socoto taariikhda ma garanaysaa kolka dib loo eego 1954 baa lagu daray in geeyigeena ma garanaysaa xaggan kale ee Ethiopia la sheegaba kolka way yimaadeen dhulkiina way sheegtaan marka ujeedadooda waa sida waa mahadsantahay waxaan inoo xaqiijiyeen ila aan ku kalsoonahay in madaxweynaha Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa toddobaadii tagay uu kula kulmay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida nin lagu magacaabo Naeemin Zeleke oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareeyay ee xagjirka amxaarada ah kulankaasi ma kula tahay in uu sabab u ahaa in haatan Mustafa uu faafiyo wararka la xiriira waxa ka dhaxeeya Soomaalida iyo amxaarada gaar ahaan waxa uu ugu yeeray qorshayaal lagu fashilinayo in la kiciyo dagaal qowmiyadeed asad la socoto waxa weeyaan dagaalka imika ka dhex socda in Tigreega iyo dawladda Ethiopia iyo Eritrea in shaxdii ma garanaysaa calculuskii equationkii politics uu isbedelay imika waayadan in 10 maalmood ay ugu dambeysay oran kartaa kolka waxa dhacday in pressureki xagga ma garanaysaa international community uu siiba Mareykanka uu saaray dawladda Abiy iyo dhaqaale xumo maanta in dawladda ma garanaysaa hortimid awgeed ayaa wuxuu sameeyay Abiy uu iska riixay amxaaradii iyo wuxuu iska riixay nimankii ma garanaysaa in Eritreankii kolkuu iska riixay qoladii kale even waxa daraato wuxuu sheegay qoladan in faanada ee qoryaha dhalinyarada sita ina hubka laga dhigo sida awgeed waxa dhacday imika inay rabaan imika sida ninkan sheegaysan niman zalq oo kale waa ninkii abuuray isaad in idaacaddan isaad saga abuuray wuxuu kamid ahaa ya arbanyuj ma garanaysaa waa ku oranaya nacam taariikhda Ethiopia ee lahayn ee xabashinimada iyo dib u soo nooleynina waa Ethiopia waxa la isku hayaa laba afkaar baa la isku hayaa afka qaal waxa lagu yiraahdaa unitary state iyo versus ma garanaysaa federalism kolka nimankan imika Tigreega waxa weyn loo haystaba
ee loola dagaalamaya waa federal systemka kolka nimankan kale federal systemkuna saad ogtahay waa qowmiyada kala gedisan ya Ethiopia 27 sanadood ugu dambeeyana kaasa lagu hagayay iyaguna waxay rabaan systemkan centralizationka ee waqtigii marka ka bilaabmay Menelik Haile Selassie ilaa dargigii jiray ee iyagu amxaaradu liska dhaxarkay kolka haddaan ku soo gaabay ninkani aabihii wuxuu ahaa nimankii ugu waaweynaa ee jarnaalada ee Ethiopia ee dadka Oromada Soomaalida in 1977 nimankii gumaaday uu kamid kolka ujeedadiisoo dhan ma garanaysaa waxa weeyaan sidoo dhulbalaad soo sameyn lahaa imikana kolka la eego wuxuu rabaa inuu kililka Soomaalida waxa imikoo kale mudan ma garanaysaa in la amaano oo la yiraahdo thank you lagu yiraahdo waxa kamid ah sida ONLF wax aad wanaagsan bay sameeyeen nabadan maanta ma garanaysaa dadkeenu ay kililkoodan iyo guud ahaan Soomaalida Ethiopia laga sheegayo kililkeena meesha nabadda ay ka jirto weeyaan iyaga qorigii dhigay iyaga qaatay nabadda iyaga waxaan oo dhan keenay kolka tiiba la doonayaa in ma garanaysaa la weyneeyo anoo soo koobaya waad la socotaa Tigreega amxaaradu way soo fadhiyaan oo dagaal weyn baa ka dhex socda Eritreankii iyo Tigreega way sayaan binashangulka dhexdeeda amxaarkii waxaa dagaalamaya xaggan kale Oromada oolaadi way dagaalamayaan afartii dhexdeeda waxay noqdeen kooridoorka Djibouti si looga gelaa dagaal weyn baa meesha ka socda meesha kaliyaata ee haddana dhulka labaad ee ugu weyn Ethiopia waa dhulkeena ee dagaalka ka badbaaday kiiba la doonayaa imika inakana ina dagaalkana la soo gasho waa istaraatiijiyada meesha jirta waa laba wax mid abi baa la doonayaa in la riixo oo laga oo Mustafa ma garanaysaa Mustafa waxa lagu tilmaamay xaqan inuu xaqliyo oo ma garanaysaa u badan yahay xagga amxaarada kolka imika waxa jira waa la isriixaya camp baa la sameysanayaa forsiya ma garanaysaa iskarab carriya oo waxaan la yiraahdaa political balance yaa la sameysanayaa kolkaas Nicmaan Zallaga wuxuu yimid waa mission buu yimid waagi horena Eritrea ninkaasi joogi jiray oo Eritrea kulba tagi jiray saan ku sheegay dad kale isaga sameeyay kolka ujeedadiisoo dhan waa nimanka khadka u dhiga isbalaarsiga imika siga naftigiisa waxa ka dambeeya Isaayas ba ka dambeeya okay waad mahadsantahay ugu dambeyntii waxaan ognahay in khalaas uu ka dhex taagan yahay xisbiga talada haye ee barwaaqo in gaabis shaqo ay jirta madaxweynaha waxa la sheegayaa in jigjiga insight uu faraha kula jiro oo xaqii dadaaladii iyo abaarihii wax kaga qaban lahaa oo haatan ku soo biyashobtay baraha bulshada maxaa la gudboon marka shacabka Soomaaliyeed muxuu noqon karaa mustaqbalka guud ee deegaanka Soomaalida ay kula tahay waxay u baahan yihiin dadkeena Soomaalida oo dhan ina ma garanaysaa in deelalji kartamo oo laga dhigto shaqo ma aha ma garanaysaa waxa jigjiga insight iyo waxa ku hadleen waxa weeyaan maanta dadka Soomaaliyeed looma qodna qofna uma maqna garanaysaa kolka waxay u baahan yihiin even maalin horena annaki ka hadalay $10 ha noqoto inaan jeefkeena ka soo saarno inaan masaajidada u gallo dadkeena civic ma aragtay inaan shaqadeena qabsano talabaad international community-ga sida United Nations oo kale in OCHA oo kale in human relief oo kale dadka waa inaan ururkeega nimka oo kale waa inuu arintaasi si degdeg ah u galo bas macluushu ma garanaysaa boqolkiiba half of them garanaysaa population-ka la eego dadka degan kililkeena waxa ku dhuftay abaara ku dhuftay shalayto BBC waxay sheegaysay oday ma garanaysaa ciyaalkiisii cunno la'aan ay uga dhinteen wax la yaabo qarnigii 12aad baan yaan taaganahay maaha wax la isku mashquuliyo haday nimankan ma garanaysaa shaqadii way qaban waayeen dawladda ma garanaysaa kililku haday iyagu ka soo bixi waayeen inaku wixii aan qabanaynay ee wax la taaban karo iyana nagu dadka Soomaaliyeed ee waqtigan dhageysanaya ONLF bay noqotay ururada kale noqotay ururkeega noqotay wixii la karayo oo dhan garanaysaa waa in xagga lagu wajaho oo wax xal la keeno oo wixii dadkeena maanta la qaban lahaa waa la sameeyo wad mahadsantahay ugu dambeyntii waxa la sheegayaa in khilalaas ay ka dhex jirta xisbigan barwaaqa gudihiisa gaar ahaan kuwa deegaanka Soomaalida u jooga maxay isku hayaan ay kula tahay adoo soo koobaya mas'uul guud ahaan saad la socotid waxa jira Francisco waxay yiraahdeen
une maison sur le sable ma garanaysaa waa aqal ku guudhisan ma garanaysaa camuud oo kale kolka male foundation pp oo iska taqaana sidii loo sameeyayba kolka iyagu waxay rabeen un abi ninka wuxuu rabay kolkuu buugiisa la yidhaha madamar qoray waxay ahayd inuu laba geem ciyaaro inuu isku ekisiyo amxaarada uu ka tuso qarnigii 17aad baan soo celinayaa oo xaggan kalena ma garanaysaa federalismkii baabiyo kolka pp-dan dadkeena waxaa loogu yeedhaya un si loo maamulo kolka maba oran kartidba awood iyo ma garanaysaa power sharinga meesha ka jira ayay wax ku leeyihiin kolka waa wax kolbade xaggii qofka looga yeedho unbaa la isku sii deynayaa maaha wax ku salaysan raay ku salaysan oo dee principle maadarat ku salaysan iyo ideology ku salaysan wax dee la kala dambeynaya ku salaysan maaha federal systemku wuxuu leeyahay waxa la yidhaaho self rule iyo waxa la yidhaha common rule tii kuma salaysna kolkaa kolkol aad ugu dhaqaaqid oo siaad waxaad ku macnaysidba maba garanaysid aad u mahadsan tahay doctor waanu kaaga mahad celinaa waqtigaaga hagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa doctor Ismaaciil xogayaha dhinaca saxaafadda ee golaha danta Soomaalida oo isagoo ku sugan dalka Mareykanka aanu ka wareysanaynay xaaladda deegaanka Soomaalida iyo wararka ay qorayaan amxaarada xagjirka ee ku aadan in la qorsheynayo in la isku horkeena amxaarada iyo Soomaalida ku nool kililka Soomaalida qadar kadib ayaanu dib isugu soo laaban doonaa warar badan oo la xiriira deegaanka Soomaalida caalamka iyo Soomaaliya daawan doontaan haddii uu baraale ka noqdo